وقل رب زدني علما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. waxaan kusoo jirnay caalimkii sheekh maxamed cabdiwahaab raximahullah, kitaabkiisii ah kashfu shubahaad, caalimkaasoo laga joogo dhimashadiisii allah u naxariistay 230 sano. maxaa wuxuu dhintay 1260, innagana hadda waxaan ku jirnaa 1436 faraxmatullahi tacaala caleyh. wuxuu leeyahay mualifu qaala almualif raximahullah waclam annahu subxaanahu من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتبا وحجج كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شيخ وحير علمه أنه أي أن الله إن إلهي أنه إنه إساقه ألا سبحانه عيبكه فناي عيبكه فواي من حكمته حكمة ديس أي كمتها حكمة ديس الحكمة وضع شيء في مكانه اللائق، شيء مكانه اللائق، شيء ما يشكوها بون إلا بقى حكمة الليلة. إلهي سبحانه وتعالى مركوا حكيم وحوالبا waa ku xukun leeyahay, ilaahay waa ku xigmad leeyahay. marka ilaahay xigmadiisa wax wanaajintiisa waxaa ka mid a lam yabcas ma soo dirin nebiya nebi bihaada tawxiidi tawxiidka lama soo dirin ilaa hadduu la soo diray jacala waa yeelay alle lahu linabiyi nebigaa wuxuu u yeelay acdaa'an cadowyo u yeelay. xikmadda ilaahay waxaa ka mid a inaanu jirin nebi uu soo diro tawxiid la soo diray ilaa nebigaa waxaa ka hor yimid dad cadow ku ah, kuwa cadow ku ahoo jinniga inta isugu jiro collaystabaa jiray. kamaa sida qaala uu yidhi tacaalaa sarreeyey allaha sarreeyaa daatan wa qahran wa qadaran, ilaahay isagaa sarreeyo carshigiisa makhluuqaadkiisa ugu sarreeya ayuu ilaahay kasii sarreeya caza wajal. ilaahay qadarkiisaa sarreeyo, ilaahay waa qadar weyn yahay subxaanahu watacaala. ilaahay qahrigiisa sareeyo, awoodiisa iyo muquunintiisa ayaa sarreysa. marka allaha sarreeya waxa uu yidhi wakadalika sidaas oo kale yani sidaas nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay kuwaan gaalada ahay cadowga kugu yihiin ayaan jacalnaa yeelnay likulli nebiyin nebi walba u yeelnay caduwan cadowaan u yeelnay. ama ka bedel likulli nebiyin waxaan u yeelnay shayaaiina alinsi waaljin, insi iyo jinni shayaadiintood shaydaanadood baan u yeelnay. amaba waxaad leedahay likulli nebiyin waxaan u yeelnay caduwan ka sifay cadowgaasoo shayaaiina alinsi insi muxuu ahaa shaydaankii iyo waljinni jinni shayaadiintiisa cadowgaasoo shayaadiintaas cadowgaasoo yuuxii u waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale zukrufa alqawli oraah la qurxiyey guruuran kedin ay kedinayaan ama dhakrin ay dhakrayaan wax. marka nebi ma jiro ilaahay soo diray ilaa waxaa colaadiyey oo ka hor yimid dadka qaar kamida iyo jinniga qaar kamida oo isu waxyoo jiro hoos wax isugu sheegi jiray hadal la qurqurxiyo la dhoodhoobay si ay dadka ugu kediyaan, jinka uga kediyaan, xaqa ilaahay uga dhakraan. waxaa mualifku waqad yakunu qad xaqiiqda yakunu waxa ahaanaya liacdaa'i tawxiid, amaba waxaa dhici karta liacdaa'i tawxiid tawxiidka cadowyadiisa inuu u sugan yahay ay leeyihiin culuumun cilmiyaalo kasiiratun badan, aqoon fara badan inay leeyihiin, iyo wa kutuban kutuba inay leeyihiin,
iyo wa xujajun xujooyin inay leeyihin laakin waa xujooyin baatila waxaa dhici karta cadowga ilaahay inay leeyihiin aqoon dad aqoon darri hayda maaha aqoon bay leeyihin diinta laftirkeeda hadday doonaan garan karaan kutub bay leeyihiin kutubo sixir baa allaha ka dhigay iyo kutubo bidax iyo kutubo falsafo iyo balaayo kale wa xujajun xujooyin bay leeyihin wax un bay ku doodayaan ama caqliyaad ha ku sheegaan ama wax kale kamaa qaala tacaala kamaa sida qaala uu yidhi tacaala sarreeye falamaa markii goortii jaa-ad ay timid hum iyaga ay u timid kuwa iyaga gaalada rusuluhum rusushoodii kuwii loo soo diray ula timid bilbayinaati caddaymo xujooyin ay ula timid farixuu waa ku farxeen kuwa gaalada bimaa shay bay ku fareen ay ku farxeen cindahum agtooda ahay oo min alcilmi aqoon ah wixii cilmi ay lahaayeen ayay ku farxeen ma ujeedaa marka aayadda waxay tusinayaan gaalada qaarkood cadawada ilaahay adaa tawxiidku inay qaarkood cilmi leeyihiin cilmigaas weliba ay ku kadsoomaan oy ku sirmaan oo muxuu ahaaba ayba ku xaqiraanba ilaahay subxaanahu watacaala waa maxay addoommadiisa wan wanaagsan sheekh wuxuu yihi idaa carafta dalik idaa haddii carafta aad garatay dalika kaa haddaad garatay in dadka tawxiidka ollaysanaya ay cilmi yeelan karaan weliba ay ku farxaan wa carafta aadna garatay ana dariiqa in jidka ilallahi ilaahay xaggiisa loo aado tacaala la sarreeye jidka ilaahay loo aado laabudda ay laga maarmaan tahay lahu ay lidariiqi jidka ay laga maarmaan u tahay min acdaayin cadowyahaas oo qaacidiina fadhiya calayhi ay cala dariiqi jidkaa dul fadhiya ahli fasaaxatin ka bedel ay leeyihiin acdaadaa ka bedel in jidka ilaahay loo aado ay laga maarmaan u tahay cadowyo ahli fasaaxatin maya ka sifay ahli fasaaxatin fasaaxo dadkeeda oo fasaaxo leh hadal caddayn leh wa cilmin ahli cilmi ahlkii ahoo aqoon leh wa xujajin ahli xujajin xujo dadkeeda ahoo xujooyin haysta haddaad garatay falwaajibu haddaba waajibku calayka dushaada waxa weye falwaajibu haddaba waajibku calayka dushaada ku waajibmayaa ku tacalluqi halkaas an taclama inaad ogaato min diin illahi ilahay diintiisa aad ka ogaatood ka barato maa shay aad ka barato mawsuulka mafcuulin bihi wey maagaasoo yasiiru ahaanaya laka adiga ku ahaanaya qofku saaxiibu tawxiidka aho silaaxan hub kuu noqonayo silaaxaasoo tuqaatilu aad kula dirirayso bihi silaaxa haulaai shayaadiintaas haddaad ogaatay in jidka ilaahay loo aadayo ay jiraan kuwa cadow ku ah ilaahay oo dhex fadhiya jidkaas oo aqoon leh haddaba qofka raba inuu ilaahay caabudo waxaa laga maarmaan u ah inuu barto cilmi hub u noqonaya oo kula diriro shaydaamadaas aladiina kuwaasoo qaala uu yidhi imaamuhum imaamkooda hormoodkooda uu yidhi wa muqadamuhum iyo koodii la hormariyo uu yidhi lirabbika rabbigaa uu ku yidhi caza rabbi adkaaye wajalla weynaaye yacni kuwa hogaamikooda waa shaydaane uu ku yidhi rabbi muxuu yidhi laaqcudanna wallahi waa fariisan lahum iyagaan u fariisan aadam ubadkiisii siraataka jidkaagaan ilaah u fariisan almustaqiima toosan uma dabana la-aatiyanna waan uga imaan oo igamaan hum iyaga min bayni aydihim ay min amaamihim hortoodaan uga imaan iyo min khalfihim gadaashoodaan uga imaan wa can aymaanihim midigyadoodan uga imaan wa can shamaa'ilihim bidixyadooda uga imaan walaa tajidu helina maydi allow aktharahum badankood shaakirin kuwa shukri naqaya heli mayso marka arrinkaasaa dadka ahlu tawxiidka ah kan hogaamiya dadka ahlu tawxiidka cadowga ku ah hogaankooda shaydaanka sidaasuu rabbi ku yiri ilaah wuxuu yidhi jidkaan u fariisan islaamka ayaan u fariisan kuwaas bani aadamkaas markaabaan waxaan uga imaan horay dalaal midig iyo bidix mana heli doontid inay kaaga shukri naqaan nicmooyinkaaga marka walakin sheekhu wuxuu yidhi walakin idaa aqbalta cala allah waasqayta ilaa xujajihi wabayinaatihi falaa takaf leh falaa takaf walaa taxzan ina kayda shayطaani kaana daciifan sheekhu walakin ha yeeshee idaa haddii aqbalta aada u jeesato cala allahi ilaahay haddaad ilaahay qaabishood qalbigaaga u jeeyo niyadaada waasqayta aada u raaricido dhegahaaga ilaa xujajihi ilaahay xujooyinkiisa aada u raaricido
وبينات إلهي بينات كيسة عدينيسة حجوين كيسة هذا الدقرار عدو فلا تخف عبصني ولا تحزن والولي محايا لي إن كيد الشيطان بقرتيسة هيدا من بابيريسة الشرقول كيسة كان وحو هذا ضعيفا مثليس وهذا بقرت الشيطان يبدا من بابيريسة هي قلب وقلبها يدتك أهل توحيدك dadka ilaahay tala saartay ku xiran subxaanahu watacaala aad bay u liidataa weeyaan shaydaan cidda wuxuu cilaystaa oon cidda ilaahay xarigiisa tuurta sheekhu walcaamiyu min almuwaxidiina yaglibu alfan min culamaai haulaai mushrikiin kama qaala tacaala waina jundana lahum lgaalibuun walcaamiyu qofka caamiga min almuwaxidiina ee muwaxidiinta kamidka ah dadku ahlu tawxiidka kamidka ah qaybihii tawxiidka uu sheekhu soo sheega ku sugan min rububiyati illahi caza wajal وألوهيته سبحانه وتعالى وأسماء الحسنى وصفاته العلى قفك إلهي كوحي حقوق أن لو ناجن يغلب كعد كان وكغالب نغن ألفا كنبو كغالب نغن وكعد كان ومن علماء هؤلاء المشركين مشركين تعلموا كمل قفك عامي ذاهو عن طالب العلم ذاهينو علم ربنا عن الله ذاتك جود إسكاح هيا شيء أهل التوحيد كهو فترة كسرا وكعد كان أبو ليه دول الضيغة كن كمل علماء المشركين كوا شركة كسبا محوها بلسه علماء العهو شركة كعلم بله كما سيدا قال تعالى ألا يريد وإن جندنا أيضا كان لهم إيضا أنبعه ضمير الخصن وحوي للحسر وفائدة هنا الغالبون كوا عدقوا إلهي وإن جندنا إذا ما لهم إيضا أنبعه لهم الغالبون كوا عدك إيضا كان إيضا marka ciidanka ilaahay baa adkaanaya dadku sheekhu wuxuu leeyahay yani inkastoo acdaa tawxiid ay cilmi leeyihiin oo kutubada haystaan oo dad fasaxa badan oo astahanaa ay yihiin fasax astahan wey ay yihiin haday doonaan afmishaaro oo dadka qalbi yaqaana ay yihiin haddana saasay tahay ha ka baqan buu ku yidhi haddaad ilaahay dhab ugu jeesato dhagaagana aad u raadicido diinta ilaahay subxaana watacaala ee xujooyinkiisa maxaa yeelay hal qof oo ahlu tawxiid oo muslimiinta guud kamid a baa ka adag oo ka xujo badan oo waxa weeye kun culamaa usuu ah sheekh wuxuu yidhi fajund ullah hum alghaalibuuna bilxujati wallisaan kama anahum alghaalibuuna bisayfi wassinaan wainama alkhawfu cala almuwaxid aladi yasluku طariiqa walaysa macahu silaax sheekh wuxuu leeyahy fajund ullah ilaahay ciidankiisa hum iyagaa ah alghaalibuuna kuwa adkaanaya bilxujati xujay ku adkaanayaan wallisaan ay carab bay ku adkaanayaan kama sida anahum iyagu الغالبون أيهم كو أتكانيا بالسيف هب وكسيف كو أتكانيا يوسنان هب وإنما إن كلماه الخوف عبسه على الموحد موحد كيدوشي ساعات الذي موحد كاسو يسلك قاضي الطريقة جدك وليس والحال ليس أنا معه أي مع الموحد معي سأنا هين لجركي سوهلكي سأنا هين أنا وذن سلاح أنا ويسن يعني إليه شاكو ciidanka ilaahay baa adkaanaya oo af iyo adinba ku adkaanaya laakiin waxaa loo baqaa qofkii muwaxidkaa saaxiib tawxiidkaa fitrada ku sugan laakiin aan aqoon lahayn aqoon uu uga jawaabo shubhooyinka ahlu shirkigu ay soo arooriyaan iyo hadalkay qurqurxinayaan dhoodhoobayaan aan garanaynin marka cilmigaas hubka ah aan haysan kaasaa loo baqaa hoy marka ha ku kaafsamin ahlu tawxiid baan ahay ilaahay baa tawxiidka fahamsiiyey waxaad ku darsataa sheekhu leeyahay cilmi ku darso aad kula dirirto dadkaa iyagaa waxa waaye shayaadiinta iyo jinka isku jira ilahay jidkiisa fadhiya sheekhu wuxuu yihi waqad mana allahu tacala calayna bikitaabihi aladi jacalahu tibyaana likuli shayin wahudan waraxmatan wabashara lilmuslimiin falaa yaأtii saaxibu batilin bixujatin ila wafi lqur'aani ma yanquduha wayubayinu buطlaanaha kama qaala tacaala ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة شيخ وقال حقيقة من نوام من نشكت الله ألا تعالى سريه من نشكت الله وقلت شكت علينا أنه نو قلت شكت بكتابه كتاب كيسو نو قلت شكت ونو نعمة شكت وإلهي نوت الماما إنه نعمة نو قلت الذي كاسو كتاب كاسو جعله يالي ألا هو كتابك يالي تبيانا عدل لكل شيء كسته إياه وهدى إلهي هنون كدقه ورحمة إلهي نحرس كدقه كتابك وبشرى إلهي بشارة ودقه للمسلمين المسلمين
falaa ya'ti oo ma imaanayo saaxibu baatilin baatil saaxiibkii saaxibu baatil la imaan maayo bixujatin xujo dood lama yimaado ilaa hadduu la yimaado qof baatil wataa dood uu rabo baatilkiisa inuu ku socsiyo hadduu la yimaado oo fi lqur'aani qur-aanka waxaa ku dhex sugan maa shay baa ku dhex sugan yanqudu burinaya haa baatilkaa burinaya wa yubayinu caddaynaya butlaanahaa baatilkaa baatilnimadiisa caddaynaya kama sida qaala uu yihi tacaala alla sarreeye walaa ya'tuuna lama yimaadaan ka adiga kuwa lama yimaadaan nabiga alla muxamed o calayhi salaatu wasalaam bimathalin tusaale ama mahmaax kuulama yimaadaan yani ay xaqa ka hor keenayaan ilaa hadday la yimaadaan ji'naa waxaan la imaanaa annaga eeba waa la leeyahay ka adiga kuula imaanaa nabiga alle muxamed o calayhi salatu wasalaam bilxaqi xaq baan kuula imaanaa wa axsana iyo mid wanaagsan tafsiiran waa tamyiis xagga macnaynta xagga fasirka yacni ma kuula yimaadaan mahmaah iyo tusaale iyo hadal iyo shay baadil ay ku doodayaan oy rabaan xaqa inay uga hortagaan oo diinta ilaahay shaki ku geliyaan ilaa waxaan la imaanaa arrintaas ay la yimaadeen wax jawaab u ah oo wanaagsan xagga fasirka xagga macnaynta iyo xaqa ah yani masalan tusaale ahaan hadday yidhaahdaan lawlaa qaaluu ma lihada arasuul ya'kulu طacaama wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiiran saasay dhihi jireen aayaad kale saas oo kale ilaahay subxaana watacaala nebi ma soo dirin bay dheheen maxaa hadduu ilahay nebi soo diri lahaa ilahay malag u soo diri lahaa bani aadam sooma dirin ilahay waa u jawaabay subxaana watacaala sababtuu ilaahay sheegay waa waxay ku doodayaan rabaan inay nebinimada nabiyullahi maxamed calayhi salaam ay ku dafiraan dadkiina ay ku wareerinayaan leeyihin may nebi ilaahay maaha hadduu nebi ilaahay ahaan lahaa yani ilahay hadduu nebi soo diraayo ilahay malag u soo diri lahaa bani aadam sooma dirin dad bay shubha ku noqon kartaa ilahay waa u jawaabo allah subxaana watacaala xikmaduu sheegay aanuu nebiga uga dhigin malag maxaa yeelay hadduu malag ahaan lahaa malag miyay dafahmi lahaayeen iyagu ma malag bay iyagu arkaan ma malag bay isku dareen yihiin see u kala saarayaan malag iyo shaytaan see u kala saaraan malag iyo makhluuqii kale marba haddaana malagiiba oqoon sida daraaddeed dad badan baa lumaa hadda oo yidhaahda malagana i yimid malag baa hurdada iigu yimid malag baa qabriga ka soo baxay malag baa ila kulmay waxa la kulmaana waa shaytaanun baid wey shaytaan baa la kulmay gaal baa la kulmay jinni ah laakiin qofkii malag u moodaa maxaa yeele malagii iyo jinnigii kalama saari karo oo isku khalqi ma aha isku makhluuq ma aha innahum yarawnakum min xaysu laa tarawnahu marka haddii ilaahay malag ka dhigi lahaa nebiga malagiisaa u fahmi lahayn midda kale malag iyo bani aadamku isku dabci maa isku dhaqan maaha malagu maba lahaaba shahwo oo ilaahay ku caasiyo ma laha malagu ilaahay ma caasiyo qofka bani aadamkaana shahwa haddii marka malagii dareemi maayo dadku waxay dareemayaan saasoo kale malagu wax ma cuno qofka bani aadamka cuntuu rabaa marka hadda malagii waxa waaye dadkii haddaanu dareemaynin waxay ku sugan yihin baahidooda dareemi maayo dhibkoodii dareemi maayo ma ujeedaa sidee buu malagaasi dadkii u garan karaa oo diin u gaarsiin karaa ma ujeedaa dadkiisa diin malag iyo diin uga qaadan karaan marka waa ilaahay waa ka jawaab subxaana watacaala ma ujeedaa marka waa saasoo kale baatil markay keenaan oo ay waxa noocaas ku doodaan waa maxay waxay ilaahay xujo keenay waxay leeyahan ilaahay nebi hadduu soo diraayo muxuu uga soo diraayo qof aan la aqoono saasoo dadka waaweyn aan ahayn lawlaa nuzila hada alqur'aan calaa rajulin min qaryatin cadiim nin weyn oo labada magaalo oo yaqaano kuwooda u waaweyn ma ilahay nebi ka dhigay dhehen ilahay waa u jawaabay ahum yaqsimuuna raxmata rabbi nebinimada nebinimada alla bixiyo naxariista ilaahay waxyiga ciduu alla dooranaayo ma iyagaa qaybinaayo iyagaa ilaahay u tilmaama miya odhanaya ilahay muxuu hebel uga dhigi waayo hebel muxuu alla uga dhigay qadarkooda dad garanaa maaha ilaahay bay u sheegayaan ciduu dooranayo naxariistiisa ciduu siinaayo marka qof allaalo caqli leh waa fahmaa qofka ilaahay rabo inuu wax u tilmaamo inuu yahay qof qaldan waakada walaa ya'tuuna kuulama yimaadaan bimathalin mahmaah ama tusaale yani ay xaqa ka hor keenayaan ilaa hadday kulima ji'naaka waxaan kuula imaanaa bilxaqi xaq baan kuula imaanaa iyo wa axsana mid wanaagsan tafsiiran xagga fasiraada qaala bacdu mufasiriin mufasiriinta qaarkood waxay yihahdeen hadi aayatu aayatan caamatun waxay caam ku tahay fii kulli xujatin xujo kasta xujadaasoo ya'ti uu la imaanaa biha iyada xujada ahlulbaatili
baadilka dadkiisa uu la imaanayo ilaa yawmi alqiyaamati qiyaamada inta laga gaaro yacni aayaddan waxay si guud u gaaraysaa xujo kasta yacni oo lagu doodayo baadil oo ahlu baadilku ilaa qiyaamaha la yimaadaan shubha kastoo cusub wax kasta oo xaq ay dadka xaqa uga leexinayaan oy la yimaadaan dadka baadilka wata ilaa qiyaamaha in laga gaaro aayaddan ayaa jawaab u ahoo qur'aanka kariimka waxaa ku sugan waxa arrinka jawaab u ah hada wallahu aclam wasala allahu wasalam wabaarak cala nabiyina maxamed alihi wasaxbihi ajmaciin